الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله وحواياهن آد صوبتي أو مجتمعين كسو بدني جرائمتا يدنبيada foosha oo ay kamid tahay dilka macna la'aanta iyo si jamaaciya dadka in loo laayo mid qarxiya mid qabyaalad ku dila mid magac diineed ku baabi'iya furuujtii cirdigii iyo sharafkii oo lagu xadgudbo dumarkii oo xoog lagu kufsado oo haddana la dilo la kharijiyo haddana kala roone gabdhihii yaryarka ah ee caruurta ah ee aan qaan gaadhin ee aan xamili karinba in hadaf laga dhigto waa falxumo waa arrin ugub ah waa wax inaan aqoon jirin waa wax cusub oo aad u falxun in jariimadii haddana inta lagu sameeyo gabadha haddana la duubo haddana baraha bulshada ku kulunta lagu soo tuuro faaxisho intee leeg waay in la dilo oo laga takhaluso imise dambiyo isa saaran waay waxay u baahan tahay arrimaha noocan oo kale markay dhacaan in asbaabtooda la baadho xal rasmiyana loo raadiyo waana mid la isweydiinayo maxaa waxan xal u noqon karay ninba meel la aadayo midba darbi la fuulayo midba taxliil muayana ka bixinayo xaqiiqadu se waxay tahay xalku wuxuu ku jiraa allihii addoomadan abuurtay kooda wanaagsan iyo kooda xunna yaqaanay waxay ka samaysan yihiinna garanaya sida ay u fikirayaanna garanaya qalbigoodana yaqaandhi iyo noocay u qaybsamaan allahaasi tabaaraka wa tacaala shuruucdu ka dajiyey bas unbaa lagu afjari karaa wixii ka soo hadhay waa kuday oo aan natiijo lahayn waa ummadda muslimka ah waxaa loo baahan yahay inay u qirooto oo ay ka masayrto oo ay ka xumaato cirdigeeda iyo sharafkeeda in dhib loo geysto cirdigu waa masuun cirdiga furuujta dumarka xubnaha taranka waa arrin aad shareecadu u ilaalisay ilaa nabigeenu yidhaahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii ku yimaada oo reerkaaga ku socda dil haddaad disho waa ahlu naar hadduu ku dilana ahlu jannata ilaa heer nabigu wuxuu gaadhsiiyey ninka weerarka ee cirdiga ku socda in la dili karo laga takhallusi karay nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ka sugan sacad ninka la yidhaahdo saxaabada ka mida raggoodii odayaasha ah ayaa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaan xaaskayga agteeda nin ku arko nin xumaan ku samaynaya seeftaan kurka kaga goynayaa buuhi weliba dhinac ugu dhufan maayo afkeedaan ku dhufan waa ka takhallusaya warkii nooca ahaa nabigu gaadhay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa rasuulku yidhi sacad baa sidaa leh ninkii naagtiisa u dhawaadiya xaaskiisa inuu qoorta ka goynayo sheegaya markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaad la yaaban tihiin masayrka iyo qayrada sacad miyaad la yaaban tihiin ilaahay baan ku dhaartay anaa ka qiiro badan anigana ilaahay baa iga qiiro badan sidaas daraaddeed buu alla wuxuu u xarimay fawaaxishta dunuubta foosha xun zinada iyo liwaadka iyo wixii la mida ayuu ilaahay sidaa darteed u xarimay teeda muuqatiyo ta qarsoonba ummaddu waa inay marka qiiro leedahay waa inay danqasho leedahay waa inay ka xajiimooto dumarkeeda in lagu xadgudbo wailaa waxaan noqonaynaa dayuuhiin sida nebigu tilmaamay sal alla alay wasalam ninka ehelkiisa xumaanta lagu samaynayo raalliga ka awaa dayuuthna jannada ma gala buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa waajib sharciga ummadda wada saaran wey
odaygeeda siyaasigeeda culimadeeda dawladdiisa raciyadeeda waajib saaran waay inay cirdiga iyo sharafka la ilaaliyo sida naftaba in loo ilaaliyo ay u tahay dhiigga in loo aqliga in loo ilaaliyo ay u tahay maalka sida loo xifdinayo si ka badan waa in cirdiga iyo sharafka loo ilaaliyo waay su'aashu waxay tahay marka munkaraadkan iyo jaraa'imtan soo noqnoqday sidee lagu afjari karayaa waxaa lagu afjari karayaa sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkii sallallahu alayhi wasallam ay ku taliyeen in la qaato oo maxay kow wa in da'yarta la tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan la tarbiyeeyo wiilasha iyo gabdhaha waa in lagu tarbiyeeyo dhowrsoonaan waa in lagu tarbiyeeyo dadka inay ixtiraamaan waa in lagu tarbiyeeyo inayna ku xadgudbin dadka kale waa inay lagu tarbiyeeyo waxa uu ku samaynayo gabadha dadka kale in macnaheedu ay tahay gabadhiisii iyo walaashii oo kaleeto wax lagu samaynayo nabigeenna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiil dhalinyaro u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo iidan lii fi zinada iidan fasax inaan zinaysto rasuulka ilaahay wiil dhalinyaro oo shahwa hayso fasax aan zinayste nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa sallam hooyada ma la jeceshaa in laga zinaysto maya buu yidhi walaashaa ma la jeceshaa in laga zinaysto maya eedadaa ma la jeceshahay maya habaryartaa ma la rabtaa maya dee kuwan aad doonayso inaad ka zinaysataba rag baa la dhashay oo rag bay dhaleen oo eedooyin u yihiin oo habaryaro u yihiin oo hooyooyin u yihiin markaasuu nebigu sal alla alay wasalam u yeedhay laabtuu gacanta ka saaray waana u duceeyey in ilaahay qalbigiisa daahiriyo wiilkii yaraa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tarbiya jamiila jiddan caruurta iyo da'yarta in lagu tarbiyeeyo inayna xadgudbin wiilasha waxaa samaynaya dhaqanka ku kacaya shaki ma laha waalidkood baa dayacay tarbiyadooda haddii waalidkii iyo mas-uuliyiintu tarbiyada ay dayacaan iyo carruurta barbaarintooda wanaagga lagu barbaariyana xayawaankaasoo kalea noo koraya yaydaa dad cunkaoo kalea mujtamaca ku dhex barbaaraya oo aan naxariis lahayn oo aan insaaniye lahayn oo aan daqansho lahayn oo wax alla waxay kala garanayaan aan jirin baa mujtamaca ku dhex barbaaraya laanna tarbiyadii baa luntay ibni aadamkana asal waxa uu jahliga iyo dulmiga asal waa sida quraanka kariimku inoo sheegay waa in marka la tarbiyeeyo carruurta qodobka labaad wax weeyaan in nolosha muslimiinta lagu soo celiyo sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu dabaqo lagu soo celiyo xuduudda ilaahayna lagu oofiyo dadka jaraa'imta iyo dambiyada galaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi qisaasta ruuxii wax dilay in la dilo ruuxii wax dhaawacay in la dhaawaco ruuxii dhibka geystay in laeg in loo geysto qisaasta waxaa idinku sugan nolol baa idinku sugan mujtamaciyow bulshadiyey qisaasta nolol baa idinku sugan noloshu maxay tahay bimacnaa waxa weeye kii wax dilahayay waa noolaanayaa hadduu og yahay hadduu wax dilo in la dilayo dilkii waa ka baaqsanayaa isagii waa noolaanayaa waa badbaadayaa dadkuu dili lahaana way badbaadayaane uu ku socdo iyaguna way badbaadayaan mujtamaciina waa badbaadayaayoo istiqraar iyo nabadgelyo xasilooni buu helayaa war qisaasta nolol baa idinku sugan kuwii caqliga lahaayow yaase fahmi kara waaya soomaalidu waxay yidhaahdaan ninna dhiiggiisa kama tillaabsado hadduu og yahay wiilkan yarkee faasidkee shuduudku ku dhacay tilaabadaa hadduu qaado inuusan ka dambaynaynin hadduu og yahay 100 xisaabood buu kala jarayaayoo isu geynayaa intuusan ku tilaabsanin laakiin hadduu og yahay waxa hadduu sameeyo maalmo in la xidhi kadibna la sii dayn odayaalka qabiilku inuu u ergoon doono la sii dayn doono inuu fakan doono hadduu og yahay asaguna wuu samayn in ka dambaysana way ku dayan doonaan noloshiya istiqraarkiya nabadgelyadu waa fasaadaysaa yaa ulil albaabi intii caqliga lahaydo intii gaalo raacday maaha munaafiqiinta maaha inta fahamkoodii caqligoodu meeshii ilaahay rabay gaari waayey maaha yaa ulil albaabi inta garashada lahow
warqisaasta waxa idin ku sugan iyo xuduudda ilaahay inaad oofisaan nolol baa idin ku sugan istiqraar iyo xasilooni baa idin ku sugan inaad nabad gashaan oo ehelkiinu idin nabad galo oo xoolihiinu nabad galaan oo naftiinu nabad gasho oo dhiigan daadanaya istaago oo dumarkan la kufsanaya uu istaago oo uu dhamaado soo afjarmo walakum fil qisasi hayatun halkaas ay ku jirtaa ma aha nidaam gaala noo keentay ma aha binaadaan wuxuu malmaluuqay ma aha xeer jajab odayaal dajiyeen ma walakum fil qisasi hayat sharciga ilaahay wa tabaaraka wa taala saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu leeyahay hal had oo ilaahay xuduudiisa kamid oo naf lagu ilaalinayo diin lagu ilaalinayo aqliga lagu ilaalinayo cirdiga sharafka lagu ilaalinayo xoolaha lagu ilaalinayo had dhulka ilaahay lagu istaajiyo ayaa dadka dhulka ku nool uga khayr badan 40 subxood inay roob helaan 40 subxood 40 maalmood oo isku xigtay inaynu roob helo soo barwaaqo ma barwaaqadaasi waxa ka sito ka fiican oo wanaaga laga helayo ka badan yahay in dadka jaraa'imta iyo dambiyada galaya xuduudda ilaahay la mariyo xadka ilaahay la mariyo laana xadka isagana dambi dhaaf buu yahay al-xuduud kafaaraat ruuxa dambiga galana dambi dhaaf buu yahay ضحيدي دنبيغا laga galayna cadaalad bay u tahay mujtamaciina istiqraar iyo xasilooni bay u tahay laakiin yaa fahmi kara muslim ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ka yimid garanaya fahmi kara gaal raac ma fahmi kara iyo wax qawaaniin bina aadan intay jidajisteen adoomada doonay inay ku maabulaan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun saas daraadeed hadii laga waabto laga warwareego xuduudda ilaahay in la oofiyo dadka jaraa'imta galaya lagu oofiyo way sii siyaadi wayna sii kordhi boqolaan iyo kumayaalna way galaafan doontaa sidaana waa sida quraanka kariimka inoo sheegay waxa kamida sababta loo baahan yahay in laga arimaha noocaas oo kale ah lagu la dagaalamo in ruuxa dhaalimka ee dambiga galay dambiinaha ah in aan la isgarab taagin in aan loo doodin in aan loo shafeecin in aan loo ergeynin in xadka la mariyo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay arin la isku haysto ruuxii gardarna cidii garabsiisa oo u hiilis ilaahay cadadiisa ka zuuli maayo inuu ku dhex sugan yahay ilaa uu ka soo noqdo odayga garab taagan qabiilka garab taagan saaxiibka u ordaya kuwa dhaqaalaha ku bixinaya kuwa soo daynaya kuwa xugun ka khafiifinaya kuwa doonaya in ruuxi dibka loo geystayna dibku raaco daalibka dibka geystayna isagoo fayow inuu iska tago kuwa doonaya ilaahay cadadiisa ka zuuli maayaan ilaa ay arinta ka fuqaan oo ka tagaan saas daraadeed madluumka dhaxiyada gabadha yarta nafta la dilay dadka xuquuqda leh ayay tahay in la isgarab taago daalimka ma in la isgarab taago saas daraadeed halkaas oo kale markay marayso حدود مركو إلهي كهل تبارك وتعالى وحيد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله حدود مركو اللي أوفينا يا مصلحة كجرتي نحريسي يسان إذين قوانين كندم بيلها مجرم كا حد كمركو تكو أوفينا يسان نحريسيين إذين تابني مرسي حد إلهي بقى أغرنا إذين كان نحريس بدن إلهي جي حد كان دتشيي أيا أدومديس إذين كان نحريس بدن قالنا إنه أغمان نحريس بدن nin kamida madaxda muslimiinta u taliya waliba Soomaalida madaxda nin kamid ayaan maalin u tagnay aniga culimo kale waxa u xiran boqolaal ruux oo gacan ku dhiiglayaal ah oo dad laayay oo qirtay ama cadaymo loo helay baa u xidhan culimadii waxay u soo jeediyeen dilkiina waa socdaa qabaa'ishii waa islaynaysa dhiigii waa qubanaya culimadii waxay u soo jeediyeen war waxani ha istaagee intan aad hayse ay ku cadahayna xadka mariyo hal qisaaso nin alla ninkii ruux dilana qisaas oo ka takhallus oo xadka ilaahay mari saasa isagana u roon mujtamacna u roon wuxuu yiri ma taqaan kuwan hadan laay hay-adihi gaalada qayliye buuri ya waa xasuuq bay dhahayaan cadaadis baan soo fuuli طيب umada maslaxadeeda miyaad hormarin mise gaalaad raali gelin billahi alayk xaakim muslim baata mujtamaca aad u talisay ahayd inaad mudnaan siiso nabadgelyadooda iyo istiqraarkooda bedelka aad hay'ada gaala iyo gaala ku raali gelinayso
ilaahay xuduudiisana aad u cadilayso tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed daalimka inaan la isgarab taagin waxaa ka mida qodobada muhimka ah ee arrimaha noocan oo kaleeta lagaga hortagi karayo in meesha laga saaro ergada iyo shafaacada odayaasha qabaa'ishii ugaasida iyo salaatiinta iyo dadka wajiga leh maxaa yeelay xuduudda ilaahay shafaaca lama geliyo waqtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhacday haweenayd reer quraysheeda ayaa zinaysatay ayaa waxaan dhihi lahaa wax xadday xoolay xadday odayaashii quraysheed ee gabadhu ka dhalatay waxay og yihiin arrintaasi nebiga hadday gaadho gabadhan in gacanta laga goyn doono markaasaa la tashado waxaa la yidhi war gabadha seen ku badbaadin gabadhu waa qurashiyad waa quraysh waa reerihii carab ugu sharaf badnaa ma gabadh quraysheed baa maanta gacanta laga goyn war saynu ku badbaadinaa innagana ceeb inooga hadhaa waxaa la yidhi yaa kaloo nebiga ku dhiiran karoon usaamo ahayn nebigaa jeclaa sal alla alay wasalam mawlihiisana waa ah war yaa kaloo ku dhiiran kara usaamaha loo diro usaama nebigu u tegay sal alla alay wasalam markaasuu kala hadlay arrintii gabadha nebigu waa cadhooday sala allahu calayh waa xanaaq wuxuu yidhi usaamow maxad ilaahay xuduudiisa ka midaad erga ka tahay ood ka shafeecaysaa miyaa usaamow maxad ilaahay xuduudiisa ka midaad maanta usoo dhigatay inaad ka shafeecdo dadkii inaga horreeyey buu nebigu sal alla alay wasalam waxay ahaan jireen kooda tabarta yar ee daciifka ee wax u ergeeye aan lahayn iyo wax u hadla hadduu xad galo way ka oofin jireen way ku qaadi jireen xugum midka shariifta ee sharafta leh reerka ka dhashay magaca leh wasiirka ah madaxweynaha sheekha ah magaca leh ama reer magac leh ka dhashayda markuu galana way iska sii dayn jireen buu nebigu sal alla alay wasalam ilaahay baan ku dhaartaye faadimadan aan dhalayee gabadhayda hadday xaddo gacantan ka jari buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabarh ka sharaf badan miyaa ku jirta carab iyo quraysh iyo aadamaha nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana inta dumarka jannada galaya sayidadoodii wey siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam haayuu nebigu usoo qabsada hadday xadi lahayd ma xadayso xaashaa inay xaddo hadday xadi lahayd gacantaan ka goyn laha buu nebigu sal alla alay wasalam odayaasha waxaan leeyahay ruclaynaya ee suxul duubaya ee ordaya ee jaraa'imta dadka galay difaacaya allah idin abuurtay ka baqa dadka la dulmiyee lagu xadgudbay u hiiliya daalimka idinka dhashay ee dulmiga geliya xadgudubka samaynaya beddelkaad u shafeecaysaan u ordaysaan oo aad xabsiyada ka soo daynaysaan xukunka ka khafiifinaysaan qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay axibatii fillah inta badan waxyaalaha noocana waxaa keena dhallinyaradeenii iyo da'yarteennii macallimiin baas baa haysata facebook baa haysta filimo ajnabi ah waxaa haysta muxuu ahaayey warbaahintaa haysata carruurtii iyagoon tarbiyo lahayn bay meel baas wax ka qaadanayaan filimada inta badan waxlaynta iyo burburinta iyo dumarka sida loogu xadgudbo iyo sida loo geliyo social mediaha bay baranayaan halkaasay aafadu ka socotaa qaar ka mida khamray cabbayaan qaar ka mida daroogiyo qaad bay cunayaan qaar ka mida qashinkaasay baranayaan ayagoon miyir lahayn bay gabdhihii ku dhaqaaqayaan carruurtii yaryarkaabay kufsanayaan carruurtii yaryarkaabay dilayaan lianna waxa weye miyir ma joogo balaayay barteen qashin bay barteen sidaas daraaddeed waxay u baahantay waxyaalaha noocaasa wada jir in loola dagaalamo qaadkaa kowka ah qaadkan laga ganacsanayo xoolaheenniina dhammeeyey gabdhaheennii cirdigoodiina ku xadgudbay dhallinyarteenniina halkaa dhigay ummadaha kalena xoolaha milyanada ay ka samaynayaan ayaa kowka ah waxaa sidaa u gelaya dhallinyaradeenna haddii qaadkii la fasaxo oo khamradii la fasaxo oo mukhadiraadkii la fasaxo oo qashinkii dhallinyarada la baro tarbiyo wanaagsanna horay aysan u jirin soo waxaasoo kale inay yimaadaan ma ah mas-uuliyiinta madaxda andimada culimada odayaasha cid kasta oo mas-uula waxaa waajib ku ah sidii loola dagaalami lahaa waxyaalaha dhallinyarada fasaadinaya lianna waxa weye waa hariib waana wax la yaab leh waa waxaana horay u jiri jirin war ninkan kadaata shahwa hadday ku hayso balaayo allaha kugu ridaya war shahwa hadday ku hayso mid kula eg ama kaa weyn oo xumaanta aad doonayso kula ogol baabad heli kartaaye gabadha 10 jirka maxaa kuu geeyey ee waxba aan xamili karaynba maxaad ka doonto maxaad ka raadsan shaki ma laha filim buu arkay shaki ma laha gaaluu ku arkay lianna gaalada qaad waxaa jira shuduudkaa qaba qaar waxaa jira shuduudkaa qaba oo jiran wadaadada kaniisadaha qaar baa qaba shuduudkaa oo jiran oo naagta la-eg uguma baxdo taweyn uguma baxdo ilmaha yarkee 3 jirka qaar bay ugu baxdaa
qaar bay 5 jirka ugu baxdaa qaar bay 10 jirka ugu baxdaa shuduudkii nooca ahaba ummadan soo galay sidaas daraadeed waxay u baahan tahay waqfa waahida tilaaba adag iyo qaraar adag iyo go'aan adag oo la fuliyo oo ilaahay shariicadiisa waafaqsan baa lagu soo afjari karaa waxa kale waad ciyaaraysaan dhiigna waad jooji weydeen qashinna waad jooji weydeen gaala nidaamkeeda intaad soo ergisateen oo wax ka samayseenna waad joojin kari weydeen maraykan baa joojin la oo reer galbeed baa joojin la oo caalamkii baa joojin la oo maalin walba riboodiyada taqriirka soo baxaya wixii sii siyaadaya nidaamkay dejiyeen baa yeelaya ka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waxalliya gaal nidaam ka yimidna marna waxallin maayo dhiigna joojin maayo fuxshi iyo zino iyo iqtisaab iyo dumar la kufsadana joojin maayo sharciga ilaahay qaata صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك